hordegeen iyo maqare hordegeen waa tulweyne Soomaaliyeed iyo maqare hadad maqashay sagaalka Soomaale oo mid kamid ah waa maqare Soomaale dadyoogana hordegeen iyo maqare maanta dad ahaan ama reer ahaan uma taagna laakiin waxay ku milmeen dadkii isir carabka ahaa ee jasiiradda Carbeed ka yimid iyo dadkii Soomaali guriga ee maanta degan xeebaha labadaas ku kala milansan yihiin waxa markaa abuurmay Soomaali guri iyo Carab dad isla falgala oo Soomaali iyo dadka Carbeed ahaa waxa magaalada Muqdisho laga abuuray wax loo yaqaan afarta rugni oo waxan afarta rugni oo Muqdisho laga diyaariyay 39 qabiil oo Soomaali iyo Carab isugu jira oo isku dhafan ayaa magaalada Muqdisho nidaam loogu sameeyay nidaamkaasi oo markaa ahaa sidii loo abuuri lahaa wadajir iyo iskaashi iyo isdhaxgal cadaalad jirta yani cadaaladda sidii loo mideyn lahaa waxa kale oo la abuuray oo dadka sameeyeen dadkii qaadiyada ahaa ee maxkamadaha joogay iyo dadkii maxal yiraahdaa culimadii yani cilmiga fiqiga iyo cilmiyada dhan laga raacanaya ayaa magaalada Muqdisho laga bilaabay magaalada Muqdisho waxay noqotay meel oogteeda geeska Afrika iyo meelo badan oo adduunka ah laga soo hayaamo ayay noqotay waxa markaa hadana halka ka dhacay waxyaabo fara badan oo kale waxa jirta marka xeer la yiraahdo xeerkii Banaadir xeerka Banaadir oo halkan iyaduna ku qoran xeerkan insha Allah iyaduna waa xeer aad u dheer oo ilbaxnimo iyo aqoon iyo karti ay ka dhax muuqato marka laakiin xeerka Banaadir dib baan u dhiganayaa qulqulkii xamar ayaa hadana u sii gudbaya iyo qaabkii loo soo qulqulay dadyo kale ayaa hadana mar kale soo bilaabay hayaan ama geedi ay ku imanayaan ardul Soomaal ama dhulkii Soomaaliyeed gaar ahaan koonfurta Soomaaliya magaalooyinka ee Muqdisho yani Baraawe iyo Marka dadyoogani ama qabayladan waxa ay yani intaan u gelin waxa kamid ah kuwan soo socda oo badbareeno badan oo hore aan uga hadalnay qayb waxaan ka soo qaadanay sida Ibn Haykal oo kale oo wax weyn ka qoray Soomaaliya sida Abu Idrisi Ibn Said Yaqut al-Rumid Abdul Fida ninkii la oran jiray Ibn Khaltum ninkii la oran jiray Ibn Battuta iyo kuwa kale badan oo buugaag badan iyo qoraalo badan ka qoray wixii markaa iftiinka magaalada Muqdisho ka ifayay iyo hareeraheeda iyo sida ay u ahayd magaalo nabdoon oo horumar iyo ilbaxnimo ay ka jirto reeraha markaa iyagoo hadana safka hore ka soo galay ee dhulka yimid si ayna iyagu u faahno waa inaan bal isweydiinaa reerahaasi yihiin ama halkay ka soo jeedaan reerahan waa dad Soomaaliyeed maanta calanka iyo ciidda iyo dhulka iyo wax kula contributionka wadanka ilaa waqtiga aan ka sheekeynayna islaamka xilligii Umayyawiinta iyo Cabbaasiyiinta dhulkan deganaa Soomaali ah oo dhulka degan oo waxna ku leh dadyogaasi markuu waxa kamid ah kuwan soo socdo tafiir badanna maanta Soomaaliya ku leh dhulka xeebaha ama dadkan muqshabeelka loo yaqaan ha iskugu jiraan ama dadkan reer xamarka la yiraahdo ama isir banaadiriga noocay doonaan ba noqdaan dadka waxa kamid ah reer Cabdi Samad waxa kamid ah Alawdiin reer Amuudi Ashraf ba Fadal ba Hamish ba Jamal Bakri ba Mukhtar ba Sadiq Hamdan Amruddin Shamsuddin Shawish iyo Wali marka waa reero xagga ka yimid oo dhulka soo degay oo iyaguna maanta isku milan dadka Soomaaliyeed iyo iyaga iyo martaqana oo dhaxkalay degan Gandarshe Marka ilaa iyo magaalada Muqdisho waxa kale oo Soomaaliya soo galay qarnigii 10aad dad Farisiin ah oo ka yimid magaalada dekada la yiraahdo magaalada dekeedka ama magaalada xeebeedka la yiraahdo Siraf dadkan oo markii hore soo maray xamar waxay dubabo u soo gudbeen magaalada Marka waxay Marka kula kulmeen dad Soomaali guri ah oo la yiraahdo kuwan soo socda kuwan dambe kuwii hore Carab ay ahaayeen jasiiradda Carabta ka yimaadeen kuwan waa Farisiin magaalada Muqdisho lafteeda xaafadda la yiraahdo Shangani iyo xaafadda la yiraahdo Abdul Aziz iyo xaafadda la yiraahdo Shibis iyo xaafadda la yiraahdo Bondere iyo xaafado badan oo xamarweyne dadka ku nool dadna waa Carab dadna waa Farisiin waa Iiraaniyiin dadyoga markaa ay magaalada Marka kula kulmeen waxa kamid ah Arsamay oo soo horu sheegnay magacii hore reerka ama qabiil weynaha